maxamed faaqid ibraahim oo ah nin qurba joog ah oo ka soo laabtay dalka Mareykanka ayaa maalgashi ku sameeyay wax soo saarka beeraha. Ninkan ayaa deegaanka Buulaguduud ka iibsaday dhul beereed dhan 20 hektar. Waxa uu sheegay in iibka dhulka iyo maalgashiga uu ku sameeyay ay kaga baxday lacag dhan $80,000. maxamed faaqid ayaa beertiisa waxaa hadda ku beeran dalagyo kala duwan sida galley, yaanyo iyo cambe. maxamed ayaa sharaxayo waxa uu xilligan uu ku doortay maalgashiga beeraha. anoo waliba hamigayguna ahaa inaan mar uun beeraley noqdo maadaama aan asalkaygu beeraley ahaa. waxay ii sheegeen dhul meeshan ku yaala oo duura oo loo baahan yahay in la tabco. marka dhulkii markaa indheeyay ayaa waxaan go'aan qaatay inaan dhulkan wax ka soo saari karo. marka dhalinyarada asxaabteyda oo ciyaal Buulaguduud aan isla ahayn oo ciyaal dugsigii iyo iskuulkaas la soo dhigan jirnay aan meesha u imid baa inta badan fikirka lahaa. waxaan muddo qurba jiray muddo 20 sano ku dhow yaan dalka Mareykanka joogay. waligayna hamigayga kama bi'in inaan mar uun wadankayga ku noqdo oo aan dalkayga hooyo beer ka tabcado. beeraleyba walibana dreamkaygu wuxuu ahaa inaan beeraley noqdo. marka muddo dheer baan jiray Mareykanka 20 sano ku dhow. waxaanan aad u doorbidayaa inaan hadda wixii ka dambeeya Mareykan iskaga soo guuro oo aan ka faa'iideysto dhulkan kheyraadka yaala. beertan waa 20 hektar ama dhinaca kale markaan u dhigo dadka acreska yaqaan waa ilaa 40 acres waaye. dhammaanteedna way tabcan tahay. marka anoo qurba ka yimid oo waliba qurbaha meesha hadda dadku ay u jecel yihiin ka imaaday waxaan ka doorbidayaa inaan dalkayga ku soo noqdo dalagaana aan abuurto. dhalinyarada sidayda kale ama raggan sidayda kale oo qurba joogana waxaan ku dhiirigelin lahaa 10 nin ama 20 nin oo reer Jubbaland oo sidan oo kale wuxuu tabca hadii la helo dadkeenu inuu ka maarmi karo qaxootinimo iyo tuugsi iyo gacan horsi. waa markii ugu horeysay طبعا qaladaad uu iska dhici karaa laakiin hadda 97% waa galley. waxaan ka abuuray oo intusay waxoogaa qara ah. waxaa ku dhex jirta waxa la yiraahdo yaanyo. midda ugu muhiimsan oo raba inaan idin sheego waxaa ku jira ilaa 600 oo geedo cambe iyo liina oo aan ka keenay Kenya ka keenay waliba ma aha halkan. waxaa shaqaale joogto ah oo mushaari ah oo salary maanta la qaata. ninka ugu yarna uu 100 qaato kan ugu badanna 150 qaato 6 ruux. laakiin daily waxa ka shaqeeya oo yaraan 200 ruux. waa dadka joornaatiga la dhaho waxa loo gooyaa wax la yiraahdo boosto. waxaan ugu talagalay meesha ugu dhaliyay inaan uga faa'iideeyo dhammaan dadka Soomaaliyeed. marka labaadna dadka deegaanka dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. qaar joornaati ka qaata iyo qaar beerta abuurtay bay isugu jiraan. marka saddexaad in dhalinyarada qurbaha joogta inay aaminaan oo dalkoodii in waxaan laga soo saari karo oo beertan laga soo saari karo waa dadka qurbaha jooga inaan dhiirigelin u sameeyo oo nin walba leh Soomaaliya lama tagi karo waxba lagama qabsan karo inaan iyadana furo u noqdo tusaale u noqdo. waxaan ka rajaynayaa inaan faa'iido badan ka dheefo inaan xoolo ka helo. waxaa iiga qiimo badan oo mar walbana dadku sheego waxaa meesha ku yaala dadka baahan ee dhibaataysan inay ka dhargaan. taasoo ugu talagalay inaan ilaahay miisaankayga xasanaadkayga u kordhiyo. marka inaan lacag jeebka gashtaay lacag haddaan u danaynayo lacag haddaan interest garaynayo Mareykan ma kiimid. maxamed waxa uu tusaale u yahay dhalinyarada u hanqaltaagayo in ay aadaan dalal shisheeye isla markaasina ku dhamaanayo tahriibta iyo kuwa dalkooda joogo sidii ay u maalgashan lahaayeen dalkooda isla markaasina uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka uu dalkooda Rabbi ku maneystay.